Markii ugu horeysay ayaa dalkani Koonfur Afrika waxaa laga furay xarun caafimaad oo daawo dhaqameed ah. Xaruntani oo lagu magacaabo Al Huda Herbal Clinic ayaa waxaa booqday TV-gan caalamiga ah Home Cable xarunta oo ku taala magaalada Johannesburg. Waxaan goobta kula kulmay dhakhtarka ku daaweynaya daawo dhaqameedka dadka Soomaalida ee magaalada Johannesburg oo lagu magacaabo Sheekh Farxaan oo ii suura gashay inaan su'aalo ka weydiiyo waxa ay qabato xaruntani ayaa waxa uu sharaxay TV-ga Home Cable waxyaabaha ay qaban doonaan iyo hore u soo qabteen waxa kamid ah cudurrada aan daweyno Ilaahay subhanahu wa ta'ala baa adoonka u fududeeyay inuu ku dawoobo laakiin xanuunada aan isleenahay dawooyinka aad haysan oo ay caawin karaan ama way daweyn karaan iyadoo Ilaahay subhanahu wa ta'ala fududeynayo waxa kamid ah HIV-ga kansarka wax la yiraahdo umusibiyan qalalka يعني xanuunada amraadda dadka ku dhaco dhan way kamid yihiin caalamka waxaan u sheegaynaa cudurka HIV in la daweeyo oo ay beentahay lama daweyn karo haddaan tusaale ku soo qaado waxa ka sugan nabiga sallallahu alayhi wasallam xabad soodada kaliya inay dawo u tahay cudurrada dhan waa xabad sooda inay cudur oo dhan ay dawo u tahay marka sidee baan lagu daweyn karin iyadoo nabi maxamed sallallahu alayhi wasallam uu leeyahay xabad soodadu waxay tahay cudur walba dawo لكن قاب كي بيفهم لا دوا ولا هليا دوا ويلاده مجران دad ka daweysay ها نعم ويجنا dad fara badan waliba aan mid ahayn iyo hal iyo laba iyo saddex South Africa mujiraan dad ku nool aad cudurka ka daweysay xaqiiqatan 2 weeks qof qoor qaatay dawadiisa waxa fiicnaan lahayd maanta inuu halkan joogo oo iska waramo xaaladda uu ku sugan yahay iyo sida uu noqday يعني mar walba uu nala soo xiriira wax iska bedelay qadadii way ka dhamaatay hayn jirtay maaragtay habeenkii ma seexan jirin oo dhidid iyo qandho iyo ab u rafaadsana miisaankiisu hoos buu u socday kor buu hadda aaday anagu daawo isbitaal ma siino sababtoo ah xaqiiqatan runta isbitaalku dawada dhirtu ka soo gaaray inuu isbitaal ka dhigo oo waxa weeye isbitaalka laftigiisa waxa ka hormarsanaa yani dadka dhirta ku daweeyay waxaana ikhtiraacka dhirta laga soo gaaray wixii baa la casriyeeyay kiimika lagu daray ummadii baa la siiyay anagu marka dib baanu dadkii u celinaynaa oo wixii aan yani maaragtay affectiga lahayn oo kiimikada lahayn ayaan geedkiisii iyo sidiisii originala kuurihiisiina ayaa la siinaya waxaan wax ku daweynaa dhirto caadi ah si kastaba ha ahaatee waa markii ugu horeysay oo xarun caynkani oo kala laga furay dalkani Koonfur Afrika oo ay ka fureen dad Soomaaliya inta aan xaruntan ku sugnaa waxaan arkay dad soo galaya xarunta oo daawadan raadinaya sida ay muuqatay Abdulhakiin Ibrahim Awale TV-ga caalamiga Home Cable Koonfur Afrika Johannesburg